بسم الله الرحمن الرحيم maanta mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay cayilka ama miisaanka sida la iskaga dhimo sida aan wada ognahay cayilka ama miisaanka waa caafimaad darro waxaana cayilka ka dhasho cudurro halis ah sida dhiig karka cudurka macaanka iyo waliba wadna xanuunka haddii aad tahay qof dhalinyaro ah haddana aad u cayilan waxaa suurtagal ah in aad qabto dhibaatooyin ka badan ama aad dareemayso dhibaatooyin ka badan kuwa ay qabaan dadka caadiga ah sababtoo ah inta aan balgaarin arrimaha caafimaadka qofka dhalinyarada ah waxaa dhibaato ku noqonaysa dhaxgalka bulshada in uu tago meelaha lagu sheekeysanayo markuu qofka yahay qof aad u cayilan sidoo kale waxaa dhibaato ku noqonayso in uu tago jaamacadaha ama waxbarashada meelaha goobaha waxbarashada ama meelaha dhalinyarada ay iskugu timaado waxaa soo wajahayo inuu qofka ka fogaado bulshada taasoo caqabad nafsi ah ku noqon karto ama inuu qofka is yiraahdo mar waliba waad cayilan tahay haddaba maanta bahda SMCC waxa ay kula wadaagayaan 4 qodob oo aad miisaankaaga ku dhimi kartid muddo bil ah haddii aad joogteyso hadda ogaaw waa haddii aad joogteyso 4taas qodob inta badan dabeecadda aadanaha ay ka mid tahay in qofku uu aad u jecel yahay wax waliba in ay hal maalin ugu qabsoomaan muddo bil ah qofka waxaa laga yaabaa in ay ku adkaato ama ay ku badnaato laakiin ogaaw wax aan loo dhididin laguma dheefsado tusaale qofku wuxuu jecel yahay in miisaankiisa uu hal maalin 10 kiilo hoos u dhimo dadka qaar oo caatada ahna waxay jecel yihiin miisaankooda in ay hal maalin 10 kiilo ay ku daraan taas la yaab ma lahan oo waa dabeecadda aadanaha sababtoo aadanaha waxaa laga sameeyay ama laga abuuray Ilaahay noo sheegay degdegsiinyo waatii uu Allah subhanahu wa ta'ala quraanka noogu sheegay khuliqal insaanu min ajal haye laakiin waa in aad maskaxdaada ku haysaa in aad u baahan tahay dadaal dheeri ah si aad u gaarto halkaad u socoto muhiimadda waa in aad dul qaadataa oo aad joogteysaa oo aad waqtigaas aad siisaa muddadaas bal aan u guda galno 4 qodob ee aan ka hadlayno qodobka koowaad bedel guud ahaan cuntooyinka aad cuni jirtay sidee ayaan ku bedelaa cuntooyinka aan cuni jiray midaas macquul ma tahay talow okay bal aan isweydiino waxba hawalwalin cuntooyinka aad cuni jirtay oo dhan kama guuraysid kaliya waxa aan ka hadlaynaa haddii aad cuni jirtay 3 ama 4 waqti waa in aad 2 waqti wax cuntaa hadda waad in aad cuntaa quraacda iyo qadada meeshan aad ka saartaa cashada sababtoo ah habeenkii inta badan jirka aadanaha waa uu nastaa wax shaqo badan ahna ma qabto sidaa darteed markii aad habeenkii cunteyso waxaa dhacday in cuntada la keediyo uu jirkeenu cuntada keediyo keedinta cuntada ee jirkeenu keedsado waxaa loo yaqaanaa glycogen waa habka uu jirka cuntada u keedsado waana midda nagu keento in aan noqono dad cayilan mar waliba oo jirka wax lagu keediyo waa mar waliba oo miisaankaagu siyaado lambar 2 ka aroor hore cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu sheegay in dadka kaco aroortii hore aysan ku imaanin cayilka ama xitaa uu jirkooda u shaqeeyo si ka fiican sida dadka kale taas oo ka saacido in uu qofku noqdo qof aad u cayilan ama aad u buuran waxa ay cilmi baarayaashu sheegeen in jirka qofkaasi uu aad u isticmaalo tamar badan iyo juhdi badan maadaama inta uu jiifo inta uu soo jeedo ay badan tahay inta uu soo jeedo waxaana yaraato qofkaas in uu noqdo qof aad u cayilan haddaba waxaa jiro meeshan oo aan ka digaynaa dad seexda barqankii tusaale 4 saac oo kale dadka aad u seexda qofkaas marnaba in waqtigaas adigoo quraacday aad seexatay cayil ma ka fogaanayo gaar ahaan waxaa la hadleena hooyooyinka guryaha jooga okay qodobka 3aad samee jimicsi joogto ah jimicsiga gym oo kaliya ma ahan muhiimaddu waa in uu qofku dhaqdhaqaaq sameeyaa sida qofka in uu socdo maalinkii muddo 30 daqiiqo ah ama in uu rucleyn sameeyo ama in uu gym-ka tago muhiimaddu waa in aad dhaqdhaqaaq sameysaa alxamdulillah dadkeena intiisa badan waa ay fahmeen muhiimadda jimicsiga taas waxaa ku ogaanaysaa waxa aad gudaha dalka ku arkaysaa dad isugu jira dhalinyaro iyo duqow oo aroortii hore rucleyn ku sameeyo wadada dheer ilaa ay tagaan meel 60 daqiiqo loo socdo hooyinkeena waxa ay sameeyaan socod aad u dheer oo ay ku raacaan dhalinyarada rucleynta sameysa wayna ku amaanan yihiin arrinkaas maxaa yeelay fadhiga inta ay fadhin lahaayeen haddii ay socdaan ay socod sameeyaan
rucleynta ma gaarayo laakiin marka qofku uu socod sameeyo waxay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan ee caafimaadka waa muhiim in uu qofku gubo baruurta ama duxda gudihiisa ku jiro maalin waliba qaabka doontid u jimicso kaliya muhiimadu waa in aad jimicsi sameysaa ama dhaqdhaqaaq aad sameysaa qodobka afraad ee aan kula talinayno waa in aad joojisaa macmacaanka iyo cabitaanada macaanka ah mar waliba uu qofka yareeyo cuntooyinka macmacaanka ah waa mar waliba oo la yareeyo habka kaydinta jirka ee sokorta u kaydiso taas oo loo yaqaano glycogen qaybtan waa muhiim waxaa jiro cabitaano badan ee uu qofka cabo maalinkii laakiin saameyn badan ku leh caafimaadkeena tusaale marka aad maanta cabto 3 ama 4 cabitaan oo macaan ah waxa ay jirkeena ka buuxiyaan sokor sababtoo ah cabitaanka ayaa ka kooban macaan jirkana wax walba macaan ee soo gal waxaa loo bedelaa soo sheegnay glycogen wax waliba oo ay jirka sokor soo gasho jirkeena waa labo mar waliba oo ay jirka sokor soo gasho jirkeena waa labo midood in uu sameeyo ama uu laga dhigo mid koowaad oo ah in la gubo sokorta ama in la kaydiyo haddii aad jimicsi fiican sameyso dhibaato naguma keenayso haddii aan jimicsi fiican sameyno laakiin haddii fadhiid aan noqono jirkeena ayaan ka arkaynaa oo waxa aan dareemeynaa anagoo cayilkeena siyaade waxa aan kugula talin lahaa in aad mar waliba biyaha cadka ah aad u cabto haddii uu qofka yareeyo cabitaanada macaanka ah wuxuu uu ku bedelan karaa meeshaas bedelkeeda cabitaanka cad ama biyaha cad ee aanan macaanka lahayn aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ku gabagabeynaynaa ilaali caafimaadkaaga iyo kan deegaankaadaba mahadsanid